The fastest growing religion in the world is Islam. diinta ugu fufka badan leh ugu faafka badan leh maantadan dunida aynu ku noolahay waa islaamka percentandiyada u badan laba sababoodba dhalmada Soomaalida Soomaalidan maqal jirin de laba walaal ah haday kala dhalbataan mid baa la oran jiray waa laandheer Soomaha soo inta uma inta isku gubaysan jirnay طبعا dhashu waxa la isku gubaysta aakhirka dhalbadnida muslimiinta waxay u socotaa xad ay record ka jabinayaan xad loo malaynayo magaalooyin waaweyn oo maanta Yurub ka yaala Belgium caasimadeeda waxa la leeyahay 25 sano waxa laga cabsi qabaa inuu muslimku majority noqdo bisabab waxa dhalanaya way iyagu gaalada inay wax dhalan bay diideen kuwi kalena way dhalayaan ka kaalay marka la eego revertka ama kuwa diinka baxay islaam gala na muslimiinta u badan dadka soo islaamaya ka badan ma dawlad islaamiya maanta islaam wada jirta ma dawladda muslimiintu islaamka ila dirirsay waa irhaab waa kan waa saatan waa caynkan caalamka islaamka dhan inta ugu badan leh maxay islaamku waa wax la cadaadinayo haddana wuu faafaya yaa faafinaya ducaadaasi culamo ma wadaha hanarkay دكتور جعفر إدريس شيخ سوداني قال ولي ونولي دوري سكاشنجر أنا فيلسوف ومسلم وعالمة جعفر إدريس باو حقري مقال لي هذا دعاء وباهن إلا عاويه مركان من بوكا ورميه وحيد مريكان بوشوغي مريكان وحنا ركبودي نتاكسيلا أبا شوغي بويدي نيويورك أيو تاكسيلا كيه وحو قادا إيربوت كدتك كقادا سوقو كيه 6 bilood gudahood 58 qof ayuu kursiga dambe shahaada ugu qabta waa taksiile muxuu sameeyaa marka zabunku customerku soo fuulo ayuu quraan u saaraa cod fiican leh reer Yurubku mesela Mareykanku uu ka furfuran yahay Yurubtan kale waxa laga yaabaa nin guriga ka soo horjeeda ku jira inaan weligaaba kula hadlaan oo wada degantiin weligiina ay sarkiseen hayna inaydan isku odhan baa suurtagala laakiin Mareykanka iyo meelahaas waa rog midhan oo dad afka kula soo galayo aad u hadal badan quraanku shidaa markuu quraanku baxo ay yiraahdaan heestan fiican maxay ahayd bay yiraahdaan marka codkan muddo isagu maqlay isagu in question ka la weydiiyay uu doonayay wuxuu dhahaa hees maaha waa the last revelation from God waa aakhir wahyi xagga rabbi ka yimaada dabeetana markaas uu sharxaa waxa kan dadku u sharxay 58 kamida baa yiri waa islaamina waa shahaada u qabtay iyagoo kursiga dambe saaran mujarrad inuu quraanka maqashiyo kadibna Jaafar Idris wuxuu kala tilmaamay nin kale oo soo islaamay muslimiinta masaajidka joogo yimaada wuxuu dhawaryaadeen dadku naar bay ku daadanayaan waa gaalo idina halkan baa iska fadhidaan warkaalayo raaca waxba idinku kaanadiin sheegun idinku kaanadiin keeno diinta u sheega wadadu istaaga dadka wadada mariyo kulay hello ma islaam rabtaa inaad barato ma islaamaysaa badbayda war naga banee qof wadada mariyo inaad tirmo islaamaysaa war ka banee wadada idhaa qaar baa dadku isku mid ma mid bayda waa maxay islaamku gacantu qabtaa laba wadaad oo ka soo kaxaystay masaajidku yiraahdo u sharxa dabeetana isagoo halkiiba ku noqday isagoo halkaas iska taagay dadkan wadadan mariyo wuxuu leeyahay war ma islaamaysaa dadba in badan waxay leedahay war naga tago ordo way dhaafayaan laakiin mid baa oranaya waa maxay islaamku kiidaha waa maxay islaamku qabtaa maalin kasta dhowr qof buu islaamka soo galiyaa waa hal nin maalin kasta dhowr qof buu islaamka soo galiyaa idan waxay leeyihiin waqti inuu hadda joogno ducaada inuu tilmaamayna waa dadka ninka isagu leeyahay anigu islaam badan garan maayo nimankaan idin soo qabqabanaya idinkuna diinta u sheega qoladiina masaajidka jooga maalinba laba buu ka soo kaxaystaa dadka masaajidka jooga waxaan uga dan leeyahay marka taariikhda islaamiga hadda dib ugu noqotaan muslimiin badan oo jabay waa loogi laakiin jeeshu dacwa ma jabin saasuu diintu u faafaysay